cabdi maxamed cumar la geeyey maxkamadda xilligaas wuxuu codsaday isagoo in damiin ahaan lagu sii daayo maadaama uu dhiig qabo oo isagoo xabsiga banaanka kaga maqan taas maxkamadda lagu keeno booliskuna wuxuu codsaday in 14 beri la siiyo isla markiina waxaa la yidhi berri baan arrintaas jawaabteeda idiin sheegi doonaa tilmaankii ku xigtay ayaa la keenay maxkamadda cabdi maxamed cumar marka maalinkii waxaa loo sheegay arrintaas inayna suurtagal ahayn oo maxkamadda way ka diiday in damiin ahaan lagu sii daayo oo maxkamad isagoo xabsiga banaanka jooga maxkamadda la keeno markaana booliskii waxaa loo yeelay 14 maalmood ay codsadeen ay dhaheen waan kusoo baaraynaa in la siiyo haddaba jawaab celintii ayaa maantana saas ayaa loo ballansan yahay waa tahay cabdi naasir maanta maxaa la filayaa marka maanta intii ka horreysay axmed waxay ahayd in la furo faylka cabdi maxamed cumar laakiin maanta waxaa laga yaabaa in waxyaabaha ay ku hayaan ay ku dabawadaan ee dembiga inay maanta ku furan ayaa laga yaabaa waxyaaba badanna waa la sheegaa oo dadku way sheegaan inkastoon ilaa hadda wax lagu furay ba jirin tusaalahaan maalinka ugu dambeysay dhibaatadii judea ka dhacday iyo ururkii heego waxyaabuhu sameeyey cabdi maxamed cumar waxyaabaha lagu haysto ayay dad badan aaminaan inay kamid tahay sidoo kalena inuu ku takrifal awoodeed intii uu jilalka maamulayay ama deegaanka maamulayay inuu ku sameeyey sidoo kalena miisaaniyadii jilalka ayaa si xun uu isticmaalay oo iyada lafteeda si wanaagsan oo si dowladnimo ah uuna ku maamulin bayda waxyaabaha la sheegay laga yaabo cabdi maxamed cumar in lagu haystaa ay kamid yihiin waxaana intaas sii dheer hay'adaha xuquuqul insaanka oo maaragtay iyaguna cabasho badan ama qoraallo badan ka sameeyey cabdi maxamed cumar gaar ahaan jeelka dhexe ee dowladdeegaanka soomaalida ee loo yaqaano jeel ogaadeen marka waxyaabahaas oo dhan ayaa maanta laga yaabaa cabdi maxamed cumar in kiis looga dhigo oo halkaas booliskii 14 maalmood qabsaday ay ka akhriyaan cabdi naasir dabcan cabdi maxamed cumar waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida dadku sidee u arkaan maxkamadeyntiisa waa sidee shucuurta dadku axmed horta dadku siyaabo kala duwan ayay u arkaan dad waxay u arkaan nin dambi galay oo maxkamad lasoo taagayo sharcigan cidna inay ka weynin ayay dadku aaminsan yihiin dadna waxay aaminsan yihiin in deegaanka ay kaga habboonaan lahayd in lagu maxkamadeeyo meesha federaalku lagu maxkamadeynayo maadaama dowlad deegaanka soomaalida uu madaxweyne cabdi maxamed cumar ka ahaa isla markaana waxyaabaha dhibaatooyinka la sheegayo uu deegaanku ka geystay marka dadku saasay u kala duwan yihiin islamana eko waxaa ka badan marka axmed maanta haddii la keeno waa maalinkii loo ballansanaa cabdi in la keeno koleyna idaacadeena dambaan kaga warqabi doonaa waxa lais yidhaahdo kale cabdi maxamed cumar keligii mehe waxaa la socda 3 xubnood oo kale marwo raxme maxamuud haybe iyo cabdirasaaq saxane sidoo kalena waxaa la socda farxaan komishinka booliska marka afartoodu marka way ku kala duwan yihiin oo madaxweynihii hore iyo 3 xubnood kale way ku kala duwan yihiin marka waxyaabihii soo kordhanay idaacadaheena dambe haddii la yidhaahdo iyaynu ku ogaan doonaa